taanka guud beelaha Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wixii hadaladii ku hadlay Faysal Cali Waraabe aad uga dhiidiyay ka dareen celiyayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya xaalkiina waa ka guddoomay suldaanka guud wixii beeshii la aflakaadeeyay waa ka guddoomay laakiin hadalka Faysal maaha qof caadi ah suuqa jooga waxa weeye waa guddoomiye xisbi oo xisbi qaranku leeyahay ayuu jooga marka hadalladu ku hadlayna hadallo loo dul qaadan karo ma yahay hadallo anshax ka baxsan buu ahaa hadallo kef buu ahaa aniga shakhsiyan wuxuu iga sheegayo waxba kama qabin aan waxa weeye kursi baan fadhiyaa siyaasaddinkii kalaana dee in la maago xaq buu leeyahay inuu ka caroodana ma aha saxaafadana kuma badniyo waxaan jeclahay waxa weeye aniga la maagi maayo waxa la maagayaa kursiga aan ku fadhiyo sida ay tahay haddana waxaan ku fadhiyaa kursi xisaanad leh waxaan ay qaranka ninka saddexaad baana umana dul qaadan karo hadallada qaarkood wax loo dul qaadan karo ma aha waxa weeye qodobka ugu horeeya uu ka hadlay waxa kamida isku dirka beelaha Soomaaliland Faysal waa ku ogaay inuu necab yahay hartiga iyo daaroodka inuu necab yahay nacayb kalena ma aha wixii xamar ka sameeyay uu ku sameeyay beelaha Soomaaliland degan ayuu ku qarinayaa in uu dhalinyarada u tuso nin daarood iyo harti necab inuu yahay laakiin ma aha inuu necab yahay waxa weeye waxa qurub magaalada ku soo galay Soomaaliland ku soo noqday waxay ahayd inuu harti iyo daarood haayo taasina ka reebi mayso dadka Soomaaliland waa qabaa'il waa dad wada degan waa dad walaalaa taasi wuxuu xamar ka sameeyay ka reebi mayso wuxuu yiri ugu weyneed waxa weeye wixii kale markuu wuxuu ka hadlay meesha la yiraaho Puntland waxa isku haysta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka is haysta waa wax iyaga ka dhaxeeya wax isaga ugu jira dhaxkalkiisa ma ay jirin oo ka khuseeya laakiin fidmo buu rabay inuu meesha dhex dhigo hadalkiisana waad maqlayseen wuxuu yiri soo eri sida ilmo yar oo u shaqeeya meel soo eri buu yiri afka toogana madaxana ka goobiyo nin dan oo xisbiya inuu yiraahdo qof madaxa ka goob waxa weeye waa dambi qaran weeye danina uma u hiilinayna wuxuu doonayay inuu isku diro labada beelood ee wada degan waxa kale oo ka sii daran oo taa ka sii xun waxa weeye wuxuu yiri Axmed Karaash intuu majeerteen dhulka ku qabsanayo qorlugud iyo coodille ayaa laga haystaa ha xoreeyo waxa weeye wixii halka ka dhaca ku dhinta dagaalka uu horinayo Faysal kaga qorlugud iyo dad mankaaba ku kuwaabinayo dalkiina baa la haystaa xoreeya haddii wax ku dhintaan isaga mas'uuliyadda qaadaya sababu laba beelood oo Soomaaliland dhexdooda isku diro de waa wax la yaab leh de waxaan u maleynayaa hadduu de qorlugud iyo coodille waa la wada degaa waa degaan Soomaaliland cid waliba waa tagtaa sabab maanta uu isugu diro laaya de waxay la tahay tan ceelaf weyn dami weydana inuu Faysal ku lug leeyahay hadduu marba qoladan isku diray inuu tanna ku lug leeyahay waa iska suurtooda laakiin waa la baari doonaa wuxuu kaloo ka hadlay doorashooyinkii wuxuu yiri baasho waxaan isku haynaa doorashooyinka iyo isxambaar wuxuuna diidan yahay in dadka Sool iyo Sanaag la diiwaan geliyo
anigu doorasho mana diidin doorashona waa rabnaa wayna dhacaysaa isxambaarkuna ceeb maaha waxa weeye markii doorashada golaha wakiiladu dhacaya waad ogeedeen Puntland baa haysatay laascaanood meel dawlad kale haysatana doorasho lagama qaban karo laakiin wuu ogyahay golaha deegaanku in markii Puntland laga saaray golaha deegaanka toos loo soo soortay oo deegaanka laascaanood fadhiya doorasho toos ay ku yimaadeen aniga Faysal doorasho iskuma hayno aniga Faysal waxaan isku haynaa waxaan anigu shaqo ku lahayn oo golaha oo dhani qabeen oo markii $22,000 ayaa saddexda xisbi mid walba $22,000 baa la siinayay si xisbiyada loo kobciyo ayaa waxa la siiyay $22,000 waxaana dhacay waxay ku soo beegantay markii kududihu dalka haystay xildhibaanada waxa u muuqatay waxa weeye $22,000 xisbiyada la siiyaa inay ku badan tahay waayo xisbiyadu waxay leeyihiin subscription bay qaataan membership bay leeyihiin lacag baa soo gasha marka xildhibaanadu waxay karteen in kududi cusbitaal lixda cusbitaal wax looga gooyo 50% in loo gooyo cusbitaaladan hadda leeyahay ambulance ma haystaan daawo ma haystaan in loo gooyo ta uu haystaa waxa weeye waa lacagta anigu lacagta de kama gooyeen waxa ka gooyay golaha dhan bay u tii waxa kale ku jirta waxa weeye wuxuu magacaabay aniga iyo laba xildhibaan oo kale oo qura oo beel ka soo wada jeeda ayuu magacaabay golahuna waa 28 wuxuu leeyahay qabiil lama aqaan waa sheegaya haduusan qabiil aqoon maxaa saddexdayada isku beesha maxaa uu leeyahay doorashadii bay hortaagay taasina waxayna tusaysaa waxa weeye qabiiladu yaqaano qabiilhaan saddexdayada noo soo socday saddex ciidan kale ku jira muu soo hadal qaadin marka waxa weeye wax kale isku haynaa ma jirtay lacagtaas la gooyay hadii ilaahay idmana miisaaniyada soo socotana waa la wada jaraya mid qodobka labaad ee ugu xun wuxuu yiri dadka nala jooga dadka nala joogaana uu u jeedaana waa hartina cidna lama joogo ninkii aan la joognayo lagu fasax cid aan la joogno iyo cid aan magan u nahay ma dal iyo dad baanu leenahay waana ogsoon yahay dal iyo dad baanu baxay cid aanu marti u nahay ma jirto wuxuu kale sheegayay kuwa gurigiisa ku dhuumanaya wuxuu yiri gurigayay ku dhuuntaan anagu ma ogin kuwa guriga ku dhuumanaya laakiin cid baan bal u diri doonaa waxaan ogaan doonaa nimanka hartiye gurigiisa ku dhuumanaya marka waxaan u sheegaynaa Soomaaliland waxa weeye 40% dalka Soomaaliland annaga leh cashuurta iyada cunaan annagu cashuuraan cunaa ma jirto waxa weeye cashuurta Soomaaliland waa la wada leeyahay waa u shaqeynaa hadii cashuur la cuno Faysal wuxuu u qabto 29 sano cashuurta dalka ayuu qaadanayay waliba waxaan hubaa lixda maamul ee Soomaaliyana inuu tabaanada laga beero uu cuno waayo madaxweyne kasta uu la kulmaa oo Soomaaliya ka soo qaata dani baa ugu dambeeyay markii ugu dambeeyay la doortay safarkii Dubai u baxay Dubai buu kaga tabatay oo yiri waxaan u tagayaa dani baan u tagayaa Axmed Madoobe buu tagay Sheekh Shariif buu tagay farmaajo u tagay Xasan Sheekh buu tagay marka isagu tabaanada islaamaha Hargeysa qura ma cuneen waxa ugu darsan anigu qoor baan hubin inuu isaguna de waa cusub waxaan inay sarki doonaan koray tahayba xaafna uu arkay marka hadii tabaano cashuur laga cunayo isaga cuna marka waxaan u sheegaynaa waxa weeye anagu Soomaaliland
haddii cashuur la qaadayo waa u shaqaynaa shaqadaanu qabanaanuna ku qaadanaa isagu se 29kaas weligii xafiis ma fadhiisan intaana lacag buu cunayay safar kasta oo u baxo xukuumadda ka bixisa marka cashuur haddii la cunayo dee ninka cunaa waa isaga awal wuxuu odhan jiray guri malihi mee malihi hadda de gurina waa leeyahay xafiiskiina waa iibsaday xafiiskiina hadda wuu iibsaday oo dhibaatada hadda taagan ucid waxa weeye markii ay isqabsadeen ciro iyo faysal isku qabsadeen xusbiga wuxuu yiri ninka igu qabsadaa ucid waa nin ugu qabsaday waa nin ninka la yiraaho Mansuur ku qabsaday hudaalka ku qabsaday Cabdiqaadir nin hudaalkiisa ku qabsaday balkiyo haddana gurigiina iibsaday gurigii xafiiska ahaa hadda iibsaday qofka ugu tagayaa waayo waxa weeye Faysal waxa weeye anagu oran maayo xisbiga ucid ma jiro wuxuu hal habeen ku celiyaa golaha wakiilada ma jiraan golaha guurtiina ma jirto waxa weeye qodob dastuuriya dastuur baa kale ku fadhiya isagu wuxuu ku fadhiyaa sharci anagu aanu sameeynay sharci anagu aanu qoro ayuu ku sameeyaa anagu se dastuur baanu ku fadhinaa haddii uu ka waatoobi waayo anagu oran mayno ucid sharciga loo diidaya laakiin ahaan maayo gudoomiye Faysal gudoomiye xusbi sidan uu yahay ku ahaan maayo saddex doorasho kale saddexdiiba waa dhacay waxay markuu doorashadii hore dhacay inuu tii labaad haduu dhacay risaan kale haduu de sharaftiisa magaciisa dhowranayo oo dadka u baneeyo dimuqraadiyadna uu ka hadlaya waxa inuu baneeyo kursiga oo dadka kale chance siiyo laakiin cid uu siinaya ma jirto hadda mid afraad buuba laakiin waxaan ballan qaadanaa inuu mid afraad isu taagin mid afraad inuu isu taagin waxa weeye markaan aad u fakiray ma doonay inaan hadlo laakiin markaan dhowr habeen fakiray waxaan goostay waxa weeye Faysal 4 jeer 3 jeer Soomaaliya dooran weey cadaawad buu qaaday cadaawadu qaaday baana hadda socota maalintii weedo xisbiyada la yiri waa la furayaana waxaan hubaa dad kula sheekaystay intaan la furay inuu xamar aadayo Faysal sidan Soomaaliya lagu wada joogi karo waxa weeye uu kala kaxaynaya oo isku diraya fidmu la taagay maalin waxa ii dib u hadlayay wuxuu soo qaatay khulafa raashidiintii baad moodaa dhar cad intuu soo qaatay wuxuu yiri yooyootanka la iska daayo maalintii labaadna waxaan ku hadlay marka waxaan idin sheegayaa waxa saxaafadda Faysal Ali Waraabe uma aqoonsanin inuu gudoomiye yahay laakiin xisbu ucid waa jira oo sharciga aan diiday wixii dastuur jabin buu ku jiraa dadkii Soomaaliland buu kala sheegay inay kala yihiin dad dal kale iyo dad la jooga isaga ka jawaabi doona dadka la jooga cid ay yihiin sidana Soomaaliland lagu wada ahaan maayo ama qabaa'il baynu noqon nin walba qabiilkiisu wax ku qaybsan ama dal Soomaaliland la yiraaho la wada leeyahay oo aanina martin nin kale uga ahayn ayay noqon doontaa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa haddaad su'aal ay weydiinaysaan aan badnayn su'aal ay weydiinayaan waxaad sheegtay inaad ka jarayso lacagihii ay qaadan jireen markii hore bay idinko kala barka jaray xisbiyada siyaasadda xisbiyada siyaasaddu Faysalo kula maaha waxaan ku aasaasayn hanaan dastuuriya ma laga yaabaa in dimuqraadiyadda lafteeda oo lagu kabeeyay in dhaqaalaha lagu siiyo inaad idinka laftiina gud ku ridaysaan maya ku ridi mayno waxa lagu siinayaa qolo waliba beesadej baa lagu siinayaa halkaas aad aragtaan nin waliba intuu wax ku qaato ayuu adduunka dhan baa saa u kala qaato waxa weeye ninkii de 4 qof haysta dukaan yar oo macdaara iyo
kira lagama wada qaado cashuurna lagama wada qaado marka wax ku filan oo dekirada ka bixisa baa la siinaya waagi hore daahir yaale 1200 buu siin jiray okay gudoomiyaha socodka bisha kamid ah asma aan khalas ma hadda waxaad sheegtay in aad aqbasheen raaligelintii laga bixiyay hadalkiisa adana ila culus badan soo jeediyay yana ka haboonay hadda raaligelinta qaateen iska amsan ma waxaan u aamusay waxa weeye raaligelinta suldaanku wuxuu siiyay beeshi laakiin Faysal maaha waa nin siyaasi suldaanka waa u mahadnaqana laakiin waxa weeye waa ninkan xafiis buu fadhiyaa qaran ayuu fadhiyaa lagagabana aamusi karo damage-ki dhacay oo hadda hadii qorili baashi coodile iyo qorilugud hadii imika iska xoreeya oo dagaal ka dhaco yaa qaadaya mas'uuliyad hadii bari ay dadka la guubaabiyay ee awalba cabanayay hadii la yaa dalkii baa la idinka qaaday dhacsada yaa qaadaya mas'uuliyadeeda waxaad tiri Faysal ma sii ahaanay gudoomiyaha xisbigu ka tirsan yahay dastuurka sheegaya xisbigiisa doortay sidee baad dastuur ma sheegayo xeer baa sheegaya xeerkii iyo dastuurku waa kala shaad marka xeerarkii baan dib ugu noqonanaa waa intaasoo dambe hadduu galay waxa weeye maxkamadna uga gudbinanaa wixii la marsiina waa marsiina laakiin gudoomiyada ma aanu aqoonsanahay ma jiro hadda ku weydiiyo xisbiyada macaaridku weli inooda kuma shaqeyn lama asixin hore way u keeneen oo waa la asixin waay mar labaad hadda waa la soo celinaya dadka qaar baa waxay qabaan in baarlamaanka haddana ka intuu la ficiltamo Faysal dib loo celin doono iyadoo gacanta ay ku jirto xildhibaanada haddana damaanad ma u qaadaysaa in xildhibaanada sharciga la xubnaha la sii deeyo waxa weeye anigu ma qaadi karo maya Axmed waxa weeye xildhibaanada waxa weeye xaq bay u leeyihiin waajibaadkooda ay gudanayaan Faysal la wuxuu ciduu keenay ku xidhanta Faysal iyo iskuma xidhnaa qofku waxa weeye ballanna lama qaadayo mana qaadi karo waxa weeye marka la keeno haddii la keeno waajibaadka dastuuriga ayaa golaha ka gudanaya hadday ku qancaan waa asixinaya hadday ku qancina waa celinaya